sheekadeena waxay ku bilaabanaysaa gabadhan arooska ah ugu dambeyn ninkeeda ayaa hortaagnaa wuxuu dhahay wejiga iska fur markay furtana asaga naxtin ayuu ka qaaday dib aan u laabano wiilkan wadada taagan telefoon ayuu ku baashaalayaa ugu dambeyn asaga wuxuu raadinayay gabar wanaagsan oo guursado weliba dooqiisa ah dhan kalena waxaa ka soo baxday gabar aad u qurux badan taasoo qudaar gorgorinaysa weliba inay gaarto diyaar u ahayd in cabaara markuu socday kadibna hortiisa ayuu fiiriyay wuxuu arkay gabadhan meesha taagan in cabaara way qancisay ayadana qayli dad ay ku jirtay qudaarta qaali way iga yeeray laakiin asaga gabi ahaanba way qancisay dhan kasta markii uu ka fiiriyay kadib niyo roob ayaa imaaday qudaartan raqiis ayay noqotay laakiin adiga waan u sii qaalinaysaa weli ka waran kaale suuq inta ma ku joogtay maxaan u dhibaysaa markaana ka managa faa'iideysanaa suuq oo naga dheeriyaa ii sheeg asaga helitaankiisa suuxaba u sii dheeraa siday u dhaqaalaynayso lacagta iyada ay haysato wuxuuna ku fikiraa haddii uu guursaday xitaa dhaqaalihiisa inay ka fikiri doonto markii ayada ay baxdayna asaga kama istaagine isla markiiba uu daba kacay meel kastay aadayso si uu u soo ogaado ugu yaraan gurigeeda xitaa inuu soo ogaado ayuu jeclaa ayada waxay raadinaysay moodada ay u raacdo laakiin ugu dambeyn kordheer ayay ka aragtay wayna u tagtay wiilkii mootada xaafadda ribigta ayaan u baahanaa miigeynaysaa intaysa fadhiisan ka horna kii ayaaba yimid ukaadi aniga xitaa meeshaan rabaa hore ii sii qaad iga sii ka yaray markastoo u soo dhowaadana quruxdeeda ayaa soo jiidanaysay in cabaarahana indhaha ayuu ka buuxsanayay ugu dambeyn gurigeeda ayay imaaday mootada way istaajisay asagana ilaa hadda wuxuu fiirinayay qaabkii u hadlayso wadada iyo bannayd ugu dambeyn uu soo degay asaga muusan hadlaynin laakiin ayada afkeeda iyo waxyaabaha ay sheegayso oo keliya ayuu fiirinayay lacagtii ayay dhiibtay waa mahadsan tahay way soo baxday asagana idoo ku maqnaa laakiin ugu dambeyn lacagtii ayuu dhiibay wuuna kasoo daba baxay ayada gurigeeda ay toos u gashay laakiin asaga wuxuu ku faraxsanaa maadaama uu soo ogaaday gabadhan guriga ay degan tahay muddo fara badan ayuu daba socday meel kasta ay tagaysana wuu ogaanayay laakiin ugu dambeyn wuuba ka hor yimid heer ay gaareen inay isku dhici rabaan oo kale iga halnoq maalmaha dhan adiga ayaan ku daba socday waxaan rabaa inaan ku guursado arrinkaasi maxaad ka leedahay ii sheeg yaa hadalkaas ayada fajac ayuu ku noqday hase ahaatee dib ayuu u fikirtay wax dharbaaxayana way iska dhigtay laakiin si kastaba hadalkiisii ku qanacday ugu dambeynna daanka ayay ka jijiiday farxad iyo damaashaad nolosha qaybteedii koowaad ayaa meesha ka bilaabatay asaga wuxuu u diyaar garoobay in uu guursado meel kasta u baahan tahayna oo geeya ayada xitaa wuxuu u soo iibinayay waxyaabihii arooskeeda ay ku dhigan lahayd dooqeeda ayay baxsanaysay meel kasta ay tagtaba dahab ha dhihin dhar ha dhihin jijimo ha dhihin wax kastay u baahan tahay faraha ayuu ka saarayay maalin maalinta ka dambaysa waxay soo gadanayeen waxyaabihii arooskeeda ay ku sharxi lahaayeen iyo dharkii ay u baahnaayeen in ay soo gataan ayaga caroor kastay u baahan yihiinna hore ayay u sii aadayeen xitaa waxay soo diyaarsadeen in fitida lagu soo geli lahaa arooskooda taasoo ay ku qorneyd magacayaashooda ugu dambeyn waxay soo aadeen xagga iyo dharka saariga dharkii arooska lagu geli lahaa meeshii lagu gadaayay kaasoo ugu talagalay inay ka dooqato nooca ayada ay jeceshahay arooska inay ku gasho inkastoo badankoodaba dharka guduudka ay jecel yihiin hase haatee saarihii guduudna arooska ay ku galaan ayaaba 100 nooc kale ah kaasoo iyada ugu talagalay nooca ay kasii jeceshahay guduudka inay kasii baxsato
farxad uma dhineen gabadha dharkaaga arooska soo dooqo ninkeeduna uu la socdo farxadeeda maanta farxad way dhaaftay wax ay dooqata xitaa way garan laadahay ase ahaatee qunfac ayay bilowday kaasoo ahaa cudur ayada u qarsan aysan ogeyn waxa uu yahay gaxlas maxaa kugu dhacan ii sheeg may riiraxayle waa iska caadi haddii aad istal ayaan ku geenayaa may naga dhaafeeqay laakiin ayada qunfac way sii waday inkastoo oo ahaa mid yar may caadi waa in bay dhihaysa mar kastana ugu dambeyn adeegooda waa ay soo qaateen ilaa ay habeenkiina magaalada ay dhex wareegayeen si farxadooda damaashad ay ugu sii qaataan laakiin ayada markaan qufci uu ku sii ziyaaday xitaa istiraasho ayay hore u soo qaadatay maadaama is darantay inuusan ka istaagaynin in abaara markay socdeenna asaga telefoon ayaa laga soo wacay waxaa iga raali noqo telefoon ayaan ku hadlayaa waayahay laakiin ayadana qufci ayaa zaad ku sii noqday waxay bilowday heer afkeeda xitaa dhiig oo ka imaado wiilka ayaa soo jeestay wuxuu weydiiyey waxa ku dhacay laakiin ayadan waxay dhahday waxba iguma dhicin dhib ma lahane nakeen horaan oo soconay haddii aad ka soo tahay sheekooyinka telefoonna fadlan follow isoo dheh la soco qaybta xigta mahadsanid